halkani waa reedab khaatumo. waa degmo xuduudeed ka tirsan gobolka Daadmareed. magaalo madaxda gobolka ee Oodweyne ayay hilaadii 85 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xigtaa, halka ay Hargeysana u jirto qiyaas dhan 180 kiiloomitir. maqaaxi geedkan hoosteeda ah ayay magaaladu ka bilaabantay xilli qiyaas ahaan laga joogo 80 gu. nin lagu magacaabi jiray Ballibaax ayaa maqaaxidii u horeysay galoolkan hoostiisa ka yagleelay, isagoo habeenkiina dushiisa u hooyan jiray sida ay tibaaxayaan odayaasha deegaanku. كلي waxaan ku hayaa wardhigooda odayaashiga waaweyn ama ka wareystan ku soo gaaray magaalada sidii Xaaji Maxamed Xaaji Waawa oo kale waxaan xogta hayaa Khaatumo markii hore waxa degan in loo dhigay Ballibaax wuxuu ka furan jiray meherad taariikhdaas waxa ahayd 38 ilaa 42 geed galoobe meeshu ahayd beesha degto daaqeen baahida magaalo ma jirin. dhulka waxa joogay bah la yiraahdo Bardugaago libaaxa koo ka yahay dadka cuna. ninkaas maalintii wuxuu shidi jiray meherada habeenkii wuxuu ful jiray geedka. magaalo ma ahayna in xuduudku halka ka yaala Ingiriisku Talyaaniguna halkaas ka yaalo halkan baandadii taay waa taas waxa weeyaan waa 82 sano. ninka Ballibaax ayaa horta koo ka ahaa cid meherad ka furta wuxuu ku baxay siyaada halkan la dhigay إن العالم الحباب إن شاء الله تنوح ويا خاتم. وحى ماشي ريدب خاتمه لو جب بحيه كل تميضنا كل عطي ماشي برواقي نقطي وحى لهاي ريدب حنا بيشا سوق جورتي أو دينا اللي سوق جوري ولا دقي يضو برواقي يصدق كوهيو وحشوا عيش شيء الله ونحرسته يضو بيش دقن تيباني اللي رجعين على قبله وبيش وقاعدين كسوت شيء ذا والشيخها وحروتي أيامي ريدب تفرسته. waxaan doonayaa buur siyaaro ballaaran ayaan wadaa in la siyaarto waa la siyaartay si wacan baa loo siyaarto geel iyo aribo waa la siiyay ka bacdi markaas uu tan waa reedab Khaatumo barkad ninka qodaxa xiba ugu xagga biyaha xagga guryaha